الله تعالى وبركاته وعبد الله أو بكر أحمد sida caadiga ah waxaad nooga barateen waxa la wixii faa'iida dhalinyarada u ah inaan soo gudbino maanta haddaba maxaan idin wadnaa waxaa meesha ka arkaysiin waa shahaado waxyaabaha marka maalinle aan idin soo gudbiyo oo aad aragtaan groupka aan soo dhigno suumiska aan qabanno oo ay ka mid yihiin scholarship-yada oo ay ka mid yihiin fursadaha shaqooyinka oo ay ka mid yihiin xirfadaha la baranayo waa mid ka mid a maanta ayaa waxaan idin wadaa waxa loo yaqaano philanthropy hay-addan waxay ku taallaa dalka Mareykanka waxaana maalgeliyaa isla dalkaasi sanad walba malaayiin lacaga ayaa lagu maalgeliyaa waxaa soo duuba khubaro barofesoro kala duwan ee dhanka Yurub casharada ay soo geliyaan wixii soo duubaan dad researchers ah marka soo duuba marka shahaadooyinka ugu macquulsan ee ku saabsan social science-ka iyo waxyaabahaas soo dhigaan tan waa mid ka mid aniga shahaadada aan ka qaatay loo yaqaano monetary evaluation saxiixeeda iyo aqoonsigeeda ayay leedahay waa shahaado caalami ah adigana waa qaadan kartaa not only monetary evaluation shahaadooyin badan oo social science-ka la xiriira caafimaadka la xiriira haddaba hay-addan waxay tahay iyo taariikhdeeda iyo aqoonsigeeda ustaad faahiye ayaa dib noogu soo qori doono marka wax kale uma baahna keliya gmailkaaga u baahan tahay inaad gelisid haddaba aan tagno oo aan ku tuso sida isaga diiwaangelin lahayd si aad u qaadato fursaddan waxbarashada ee muhiimka ah waa fursadaha dhalinyarada ah oo mar walba diyaar idin ah in idiin soo gudbiyaan scholarship-yada shaqooyinka iyo waxbarashada sida caadiga ah markii aad rabto inaad iska diiwaangelisid waxaad tegaysaa waxaad tagtaa sida caadiga ah google-kaaga tag ani hore aan soo kacsaday adigoo bilaawa ka soo qaad waxaa ku qoraysaa philanthropy university google-kaaga marka aad tagto ama chrome-kaaga philanthropy university ku qor kabacdina haddii aad computer isticmaalayso interneh haddaad telefoon isticmaalaysan caadi soo tani waa mid marka jaamacaddan kuu sheegaaye waa non profit wax lacaga kaama rabto keliya gmailka ka rabtaa waad ku dhufanaysaa wallahi runtii waxaad ka heli kartaa koorsooyin aad u macaan oo aniga aan qaatay waa mid ka mid a waxyaabaha shakhsi ahaan mar walba aan jecel inaan koors ka qaadato ilaa haddaa ka wadaa hal sano ka horna waa bilaabay soo markii sidaan uu kuusoo saara muuqaalka si aad iskaga diiwaangelisid akoonna ku samaysatid waxaad ku dhufataa courses soo waad u jeedaa koorsooyin badan ayay bixisaa laakiin koorsooyinka intaan bilaabin ka hor maadaama aad ku cusub tahay waxaad samaynaysaa register anigoo kala sign in waan dhihi karaa horaa shahaadooyinku qaatay laakiin maadaama aad ku cusub tahay iska diiwaangeli oo akoonka dhex samayso so wuxuu kaa rabaa magacaaga koowaad soo sambal ka soo qaad cabdullaahi last name-kaaga ahmed ayaad gelinaysaa then gmail-kaaga ayaad gelinaysaa kadibna password-kaaga ayaad gelinaysaa sida caadiga akoon ayaa ku samaysanaysaa simple way then waxaad leedahay sign up waa ina horta akoon ka samaysataa jaamacaddaani markaad soo gelaysid the next step wuxuu kuu soo qorayaa username waa inaad samaysataa so my username magit abdullahi 08 organization haddii aad ka shaqayso waad gelinaysaa so haddii aad ka shaqayn waxaad samaynaysaa check meeshaan dheh meeshaan kalena check dheh then sida caadiga another boot dheh kadibna submit dheh so haddii aad ka shaqayso waad gelin kartaa the kind of organization ka shaqayso masefa ma hay-ad kala laakiin simple way haddaad ka shaqayn labadaba tick saar then submit dheh so kor wuxuu ku soo qorayaa marka your account has not been activated please check your email to active your account so sida caadiga marka aad samaysato gmail wuxuu kuu soo dirayaa link isla gmail-kaa gelisay haddaba aniga aan linkiga istixraaco chrome-kayga sida caadiga ii soo geli and I think this is my gmail linkiga ayaan raadinaynaa marka ninkani waa gmail-kayga then linkii ii soo direen philanthropy university oo inaan active ka dhigaa si akoonka ugu sii ogolada inaan gudaha u galo hagaag account activated marka the next process waxa waa sign in already akoona ku samaysatay gmail-kaagii gasho
so gmailkaygaan gashanayaa inta cabdulla ahmed then passwordkaygaan gelinayaa so markani waa stepka labaad waqti badan maba qaadanayaaba 2 minute waayaba inaad jaamacaddan aad akun ku samaysato 2 minutes bis waaye sorry bola yes and so this is my gmail so marka already bas passwordka dad halkaas ka furanaysa laakiin aniga ma ku furayo marka save dheh so already jaamacadda ku dhex jirtaa so wuxuu ku leeyahay si aad course isaga diiwaangelisid click here ama you don't need sida caadiga courses ku dhufanaysaa marka ani marka waa kana almost akoon iga sameeyay meeshaas oo kugu soo qoraa so kuwan koorsooyinka waaye so specialization uu leeyahay koorsadan kala 3 koorso ayaad ka sii diyaari kartaa marka conference-ka dadka oo hay'adaha ka shaqeeya aad ugu fiican digital advising waa koorso fiican advocacy waa koorso fiican koorsooyinka marka qofku uu baran karaa dadka seniorka and sidoo kale in review waa koorso fiican global social entrepreneurship waa koorso aad ka diiwaan gelin kartid so see all courses aad ku dhufanaysaa mid alla mid ka rabtida marka iska diiwaan gelinaysaa so ku soo bandhiga koorso alla koorsada rabto waa badan yihiin so monitoring evaluation meesha aad ka helaysaa haddaad rabtid human capital strategy koorso aad u macaan waaye qofkii daneynaya qaadanaya waa koorsooyin aad u badan marka this is from data collection to data use dadka ayada ka shaqeeya ay rabaan hadda shaqada ugu dambeysaan soo dhigayna waxay ku salaysneed data collection ma tahay xog ma soo aruur kartaa so haddii qofka marka shahaadana uu qaato oo waddanka America waliba ka qaato USA aad marka tixgelin badan loo siinaa so si marka la shaqada isku dhaafin waxyaabaha ugu badan Soomaaliya dadka shaqada xawaaye xog aruurinta ma taqaanaa marka data collection ka aad waan fiican tahay monitoring evaluation waa tanaa so markii aad rabto koorsada marka few course oo kala haddaad koorsada rabto inaad iska diiwaan gelisid enroll today isla maanta daarta inaad qaadatid waxaan ka wadaa isla maanta aad daarta inaad iska diiwaan gelisid waqti badan u baahan tahay mana badna marka asbuucii 1 ilaa 2 saac ayaa siinaysaa shahaadana waa digital ma fahanti mid la bedeli kara ma aha haddii shahaadada waa digital waaye marka koorso walba waxay leedahay module leedahay module 1 module 2 module 3 ilaa 5 module waaye 5 module-ka markaa dhamaysa ayaa shahaado ku siinayaan certificate-ka waxay ku xiran tahay inaad dhamaysid koorsada iyo assignment-yaasheeda iyo shaqooyinka lagaaga baahan dabcan marka waa mid aad u fiican aan ka laabto haddaa rabto marka enroll na waa leedahay toos isaga diiwaangeli koorso walba toos isaga diiwaangeli so marka already uu ku bilaabo koorsada language English waaye few course ku sii dhufanaysaa si koorsada aad gudaha u sii gashid then waa ujeedaa koorsada watana soo dhawow lagu leeyahay module leedahay module 1 oo kala ku dhufanaysaa then waxay leedahay pre assessment maxaa ka taqaanaa monitoring evaluation introduction ko kala aad u macaan yahay koorsada runtii wax badan u macaan yahay monitoring evaluation si sax ah u baranaysaa so marka sidaan waaye kulli haddaad rabto marka in koorsada meeshii ku maraysay sixitaanka iyo macalinka progress ayaa ku dhufanaysaa so marka scale-kan iyo graph-kan oo aad u jeedid module 1 oo kala wuxuu leeyahay hoos uu ku leeyahay module 1 waa kuwana pre-assessment problem meeshan 00 da ah ayaa laga rabaa inaad dhamaystirtid marka ilaa heer meeshan 0% ka totaliga 100 marka ageysid koorsada ku siinaya marka aad u fiican tahay runtii in laga faa'iideysto rajayna waana iga mahad celin doontaa oo karti badan aad leedahay aad u fiican tahay and marka koorsada sidaan waaye waad u jeedinaa filayaa monitoring maxaa la dhahaa key termska koorsada intaad gelin ka hor wuxuu ku faahfaahinayaa key termska si fiican loo habeeyey oo niman macallimiin khubaro ah oo professors ah ayaa casharada soo dhigay waa mid ka mid ah platformska aan aad ku jeclahay marka 1 saac ilaa 20 daqiiqo module ku dhamaynaysaa 13 daqiiqo quiz-ka lagu taglay 5 daqiiqo discussion-ka 2 daqiiqo fiidiyoasha marka fiidiyoal uu leeyahay qoraal la aqsana uu leeyahay cashiro uu leeyahay waxa alla wixii qofku ku fahmi karo haddaad maqal ku fahmaysid maqal uu leeyahay haddaad qoraal ku fahmaysid qoraal uu leeyahay marka runtii aad u fiican tahay so ha laga faa'iideysto ani monitoring evaluation aan ku dhuftay koorsooyin badan oo sidaas la mid ah jirto
waad ka qaadan kartaa waa free waa aad u sareysaa hal mar aan ka laabto marka soo dhawaada waxa la wixii aad u baahantiin waana soo dii kartiin runtii fursadahan ustaad faahiya dhahay la sheer garay ardada si wax badan oo u bartaan aqoontoodana kor u kacdo mishinkeenu wuxuu yahay aqoon ahaan dhalinyarada inay kor u kacdo fursado ay waxraadsan karaan lugahooda ay ku dul istaagaan marka isku day marka maanta waa laga tegay in macallin oo sabuurad kula tago caalamka maanta joogo waa e-learning inuu qofku wax isbari karo qolkaaga imaa shaaxaaga soo qaado isku xir maalin walba 20 daqiiqo bisi intaas kaliya samee teleefankaaga hadaad soo qaado kombiyuutarkaaga maalin walba adigu wax isbar so haddii aad la qabsato e-learningka in adigu wax isbarto runtii aqoontaada waa meel dheer tegaysaa marka ka faa'iideyso oo adoo America tigin caalamka wax ka qaado aqoontii baro luqadii wax walba ku fudaanaya marka dabcan YouTube-ka ayaan soo dhigi doonaa faahiye groupkana waan soo dhigi doonaa fursadaan iyo fursadaha la mid ah mar walba diyaar ayaan u nahnay soo dhawaada fursadaada ka faa'iideyso inta dhalinyaro tahay oo aad qad haysatid oo aad qalin haysatid oo computer haysatid waxbarasha waaye laga maqlin waxbarashada maanta banaanka iska daadsan tahay soo dhawaada waa maasantiin waa anigoo Cabdullaahi Abubakar Axmed iyo faahiye